maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu mar kale u tartami doonaa xukunka dalka waxay noqon doontaa markii saddexaad ee uu tartamayo hal mar isaga adkaaday hal marna waa laga adkaaday labadii doorasho ee uu hore u soo galay wuxuu damac uga jiraa inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee 2 jeer la doorto inuu doorashadan ku adkaan karo shaki badan ayaa ku jira wuxuu xambaarsan yahay dabeecad ka duwan dhinacyada ka soo horjeeda waa siyaasad aamusan waa dhaqan curdun ah oo uu farmaajo la yimid dal wax badan uma tari karto dabeecadda noocan ah waliba dal dhibaato ka soo kabanaya sida Soomaaliya laakiin shakhsiyadda farmaajo wax badan ayay ka tartay arrintan sheekadan waxaan ku eegaynaa sida uu farmaajo ugu liibaanay siyaasaddiisa ku dhisan aamusnaanta farmaajo wuxuu noqday madaxweynihii ugu hadalka yaraa ee qabta fila Soomaaliya intuu xafiiska joogay waa kooban yihiin shirarkiisa jaraa'id khudbooyinka uu shacabka u jeediyey iyo waraysiyadii uu dhiibay intaba dawladdiisu waxay badi isticmaalaysay wareegtooyin qoran waxaa in badan caawisay hadal jeedintii joogtada ahayd ee ra'iisul wasaare xasan cali khayre laakiin xitaa markii uu khayr baxay farmaajo waa uu sii waday inuu afku u xirnaado muxuu ka faa'iiday arrintan farmaajo waxay dabeecadani hareer marisay eedihii dawladdiisa markay dawladdu qalad ku kacdo inta badan waxay dadku ku doodaan inuusan farmaajo lahayn dhaqanka noocan ah balse ay dabeecadani tahay mid ka timid dadka ka hooseeya aamusnaantiisu waxa ay keentay in mararka qaar dad kale si aanay filin dusha u saartaan eedaha loo haysto xafiiskiisa wuxuu abuuray dad isu dhigaya eedaha dawladdiisa isagoo aan hadlaynin waxaa weli loo arkaa dhibana siyaasadeed waxay arrintani xoogaa u difaacday aragtidiisa lagu daday waddaniyadda siyaasadda afgaabnidu ku dheehan tahay ee farmaajo waxa ay sababtay in la fahmi waayo biyadhiciisa waxa uu damacsan yahay iyo cidda uu ogol yahay ama uu diidan yahay inkastoo ay jiraan dad badan oo ka laabtay taageeridda aragtida farmaajisimka haddana siyaasaddan aamusan ayaa la aaminsan yahay inay farmaajo u xafiday taageerayaal badan oo ilaa maanta ku doodaya inuu farmaajo yahay hogaamiye wanaagsan balse uusan weli helin ciddii fahmi lahayd inkastoo dadka qaar ay arrintan u sababeeyeen hadal helista oo ku yar haddana xitaa waxaa yar war-saxaafadeedyada uu xafiiskiisu soo saaray intii uu xilka hayay waxaa kaloo arrintan khafiifinaysa inuu farmaajo inta badan hadli jiray waraysiyana bixin jiray markii uu mucaaradka ahaa hadal yaraantiisu aad uma caawin bulshada Soomaalida u baahan in la jiheeyo laakiin shakhsiyan waxaa la aaminsan yahay inay isaga ka dhigtay siyaasi nadiif ah oo weli rajo iska qaba maamul ahaan dawladdii farmaajo wax badan ayay ku hafatay laakiin dulucda sheekadeennu waa inuu isagu si shakhsiya ugu liibaanay inuusan inta badan hadlin tani waa sababta ay weli u jiraan dad badan oo aaminsan inuu farmaajo mudan yahay inuu 4 sano oo kale dalka xukumo waxayna dad badani qabaan inay arrintani wax u tari karto xilligan oo uu bilowday ololihii doorashada ma aaminsan tahay adigu inuu farmaajo ku faa'iiday siyaasaddiisa aamusnaanta maxay kula tahay adiga